بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale walaalayaal muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay guryo iib ah waa guryaha hadda idin muuqdo walaalayaal guryahan iibka ah waa guryo sar ah ama filooyin qaabka u dhisan yihiin waa qaabka naqshadihii hore balse waa laba guri oo dhameystiran waa kala madax bannaan yihiin waa aragtaan labada guri midkaana waa laba jidle ganjeelka weyn ayuu leeyahay midkaan kalena sidoo kale walaalayaal waa laba jidle waxaa u dhaxeeya luuqaas labada guri ee iibka ah waxaa dhinacyada ka maro wadadan iyo wadada kale ee dhinaca kale sidoo kale wadadan kale ee hormarto marka waxaa la dhihi karaa haddii hal guri oo kale laga soo qaado waxay haystaan saddex wado marka la kala qaado oo calaa guri ama calaa boos loo kala qaadane mid kasta oo ka mid ah wuxuu noqonayaa laba jidle walaalayaal guryahan iibka ah waxay ku yaalaan meel aad iyo aad istiraatiiji u ah maxaa yeelay waxay ku dhow yihiin wado weyn oo laami ah sidoo kale waxaa ay u dhow yihiin suuq aad ka heli karto dhammaan adeegyada aad u baahan tahay guryahani waxay ku yaalaan xaafad ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada Muqdisho wadooyinkoodana waa ay fiican yihiin wadadan ayaa hormarto oo wada waasac ah derbigan ilaa guriga albaabkiisa waa aragtaan wadada sida ay u weyn tahay walaalayaal soo dhawaada waa guryo hore ka degi kartaan cabirkooda waasac yahay dhismahoodana uu fiican yahay kaliya dayactir yar inay u baahan yihiin ayaa laga yaabaa ama sidoo lagu dego weliba kan dhinacaan soo xigo dhismihiisa aad ayuu usii qurux badan yahay kan kalena kama liito walaalayaal soo dhawaada waxaan guda gelayaa xogta guryahan iibka ah oo dhameystiran insha allahu tacaala ee ka bogasho wacan haddii aan ku bilaabo meesha ay ku yaalaan walaalayaal waxa ay ku yaalaan magaalada muqdishona waxay uga sii yaalaan degmada kaaraan walaalayaal degmada kaaraanna waxay uga sii yaalaan xaafadda argentiin ama xaafadda lafweyn laamiga weyn ee ka yimaada isgooska fagax ee aada isgooska sanca waxaa ka xiga oo keliya 3 boos laamiga aad ayay ugu dhow yihiin marka hotel lafweyn horta iridiisa soo martid ayaa waxaa usoo leexanaysaa dhanka siisi markaa soo aadaysid gacantaada bidix kadib haddana bidix ayaa usoo leexanaysaa jidka kugu horeeyo walaalayaal sidoo kale laamiga ay u dhow yihiin waxa u kala baraa degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan waa laamiga loo yaqaano ama la dhaho laamiga Balcad ilaa iyo degmada Balcad ku xira magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka qaybo badan oo ka mid ah walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo xagga cabirka oo ku fadhiyo guri kasto oo guryahan ka mid ah walaalayaal wuxuu ku fadhiyaa cabir ah 13 mitir iyo bar lagu dhuftay 13 mitir iyo bar waa dhulka loo yaqaan treedishaha waa treedisha bar treedisho nuska wuxuu iska noqonayaa luuqa ama nuska boos walba inuu ka tago laga rabay marka guryaha dhisan mid kasto kamid ah wuxuu toos u yahay treedisha bar treedisho ama 13 lagu dhuftay 13 runtii waa cabir waasac ah sida aragtaan labadan guri ee waaweyn ayaa ka dhisan gurigaas waa aragtay albaabka dhinaciisa xataa dhulaa sii jiro ilaa qolkan irid banaanka ah sidoo kale gurigan kale ee madabka jaallaha uu marsan yahay waa ilaa meesha lameeriga uu saaran yahay oo ah luuqi u dhaxeeya labada guri ee in laga dhiso loogu talagalay walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha iyo lacagta lagu rabo walaalayaal guryahan iibka ah waxaa lagu rabaa calaa guri 55,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waana macal dalaal iyo heshiis waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowdo kuma dhamaado walaalayaal qiimaha waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala labada boos ama labada guri hadda isku qaadanaysaanna waxaa la idinka siinayaa
100,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macaldalaal iyo heshiis waa fursad waxaana waliba si fiican isku qaadataan haddii aad doontaan 2 qof ayaa iskula gadan kartaan lacagta isku darsanaysaan si qiimo dhimistaas uga faa'iideysataan walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo xagga jidadka iyo jihada walaalayaal guryahan iibka ah midka hadda idin muuqdo rinjiga cadka uu marsan yahay waa 2 jidle wadooyinkana waxay ka kala maraan galbeed iyo waqooyi ama hadaa si kale u dhigo waa galbeed ujeed iyo waqooyi ujeed balse albaabka hadda dhanka waqooyi ayuu ku yaalaa dhinaca kalena galbeedka waa loo jeedin karaa oo laamiga uu ka xigo sidoo kale walaalayaal gurigan kale asagana waa 2 jidle jihooyinkiisana waa bari ujeed iyo waqooyi ujeed asagana hadda albaabkiisa dhanka waqooyi ayuu ku yaalaa balse hadda dib u dhis ku sameeysid dhanka bari waa ka dhiga kartaa waliba bari ujeedka ayaa la sii jecel yahay marka labada guri hal boos oo kale laga soo qaadana waxay noqonayaan inay isku haystaan 3 wado oo kala ah bari galbeed iyo waqooyi walaalayaal haddii aan ka hadlo xagga qolalka waxaa ka dhisan 5 qol xagga dukumentiga markaan ka hadlo walaalayaal guryahani waxa ay leeyihiin dukumenti saxan oo dhameystiran kaasoo ah rasiid iyo sabarloog original ah maxamed siyaad barre ah sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhameystiran yihiin haddaan nahay shirkadda Dallis Real Estate waxaa diyaar u nahay inaan dukumentiga idiin geyno nootayadii aad dalbataan si leedinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga insha Allahu tacaala dhul ama guri iyo dhammaan hantida maguurtada waxaa laga gataa oo laga fiiriyaa xagga dukumentiga iyo sharciga guriyahan sharcigooda marka waa u dhameystiran yahay nootayada rabta ayaa geysan kartaa walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate waxaa diyaar u nahay inaan soo tusino haddii aad ku qanacdaan sida ugu fiican idinkugu dhammeeyno hawsha shirkadda Dallis astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha ee degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidan oo kale ayaa idinkugu bicegeynayna insha Allahu tacaala haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha ee degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriira waa idin helaynaa insha Allahu tacaala ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalkana furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allahu tacaala sidoo kale Facebook iyo TikTok-gana follow naga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh